بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa Sahan Academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaynu ku gudi jirnaa course-ka inuu ugu magac darnay basic concepts oo markaasi ah course aynu ku baranayno waxyaabaha aasaasiga ah ee markaasi ku saabsan wax la yiraahdo computer-ka gaar ahaan concept ahaan inagoo markaasi u qaadanayno waxay qayb ka tahay course-ka essentials of computer applications waxaan maraynaa lesson 5 oo markaasi ah casharkana waxaynu kaga hadli doonaa waa ways to improve computer skills waa wadooyinka aad sare ugu qaadi karto xirfadahaaga computerka ayaan casharkan uga hadli doonaa wuxuuna noqon doonaa casharka ugu dambeeya ee basic waxyaabaha ama qaybtan oo basic concepts ka ah ayuu noqon doonaa casharada kale ee xiga waxay noqon doonaan kuwa markaasi practical ay noqon doonaan waxa filan marka afartii cashar aynu horey usoo daawanay si fiican loo fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan afartaas casharna waad soo weydiin kartaa WhatsApp nagala soo hadli kartaa Telegram ayaad nagala soo hadli kartaa ama email ayaad noo soo diri kartaa adigoo cinwaan uga dhigayo fariintaada casharka aad rabto inaad su'aal inaga weydiiso sidoo kale waxaan filan talooyinkan ka jeediyay muuqaaladii hore ee afarta ahaa ee qaybta marka ku saabsaneyd in marka la qaatay ama hadii kadib la qaadan doono ku saabsaneyd in wax badan la raadiyo waayo mar waliba aad wax badan raadiso waxay markaasi raadintaas waxay sabab u noqon kartaa inaad wax badan aad fahamto aan gudaha kale marka course-ku waa basic concepts lesson 5 ayaan maraynaa waa computerka ways to improve your computer skills waa wadooyinka aad sare ugu qaadi kartid xirfadahaaga ee computerka waxa aynu markaasi aadno wadooyinka sare looga qaado computer skills ama xirfadahaaga computerka ilaa iyo 5 wado ama 5 qaab ayaa soo qaadan doonaa ama 5 step oo markaasi muhiim ah kuwaasoo aad sare ugu qaadi kartid aqoontaada dhanka computerka qodobka koowaad wuxuu leeyahay identify what you need to learn marka hore cadeey waxa aad rabto inaad barato hadii aad rabto inaad video editing aad barato wax kale meel iska dhig yani hal shay kaliya u go waxa adiga baahidaada ah yani u go way hadii tusaale hadii aad rabto wax la yiraahdo graphic design hadii aad rabto ama sawirada sida loo qurxiyo aad rabto yani waad u baahan tahay hadana isaga inaad u ayaa muhiim ah hal program kaliya inaad u go'do ayaa muhiim ah qodobka labaad wuxuu ku leeyahay start with the basics waxaad ka bilowdaa waxyaabaha aasaasiga ah yani meesha ugu yar ka soo bilow oo meeshaas ka soo bilaw yani adigoo aan qofku waxa la yiraahdaa alifkiisa aan toosin albaqradiisa ma toosisa la yiraahdaa soo marka waxa adiga aad rabto ee aad qorsheysatay ee aad u baahan tahay inaad barato basicskiisa ka soo bilow and ensure haqiiqi you know inaad baratay how to use a computer sida loo isticmaalo inaad baratay ama inaad taqaano waa inaad markaas xaqiijiso qodobka saddexaad wuxuu leeyahay familiarize yourself nafsadaada waxa waaye u qorshay with and understanding how to use an internet work yani nafsadaada waxaad ka lamaanaysaa yani adigoo markaas faham la qaadanayo sida computerka ay u shaqeeyaan ama computer sida ay u shaqeeyaan iyo internetka sida uu u shaqeeyo yani family ka dhigo oo baro waaye sida uu u shaqeeyo computerka iyo sidoo kale sida internetka uu u shaqeeyo qodobka shanaad wuxuu ku leeyahay tech waxaad qaadataa free online yani waxa waaye koorsooyin free ah oo online lagu barto sida kuwan oo kale qaado or in person computer koorsooyin oo computerka ku saabsan oo markaas lacago ah qaado waayo xirfad waaye waxaad ka baranaysaa wax aad ku shaqeysan karto hadhow ayaad markaas ku baranaysaa qodobka shanaad apply the knowledge and get hands on practice yani waxa way xaqiiji aqoonta adiga aad kasbatay marka hore xaqiiji kadibna waxa markaasi aad baratay si practical ahaan u sameey yani hada tusaale casharo baan akhrineynaa wax practical oo aan sameeynaa markaan sameeyno kadib adigana waxa laga rabaa inaad dib u sameyso waayo mar alla markii practicalkaaga ay u bato waxaad markaasi shaqooyinkaagi way badanayaan wax badan ayaa markaasi ka fahmi kartaa waxaan filayaa markaan casharkan si fiican loo fahmay intaynu ku soo gabagabeynayna casharkan intaynu ku kulmi doonaa casharka xigana waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh